ma doonaysaa inaad guulaysato mase doonaysaa inaad ka madax bannaanaato caga xirnaan dhanka ay ahaataba kaaga timaada ma doonaysaa inaad xor u ahaato horay u socodka aad damacsan tahay dabcan haa ayay noqonayaan jawaabahaagu haddaba ka digtoonow 5 amuurood in ay saameyn ku yeeshaan nafsadaada iyo maankaaga waa haddii aad doonayso xornimo buuxda kuwa badan oo doonayay in ay horay u socdaan ayaa weli ku xayiran amuuraha kan 5 ah ee aan maanta doonayo in aan kula wadaago si aad uga madax bannaanaato culayska xayraadeed ee ay saari karaan gaarista yoolkaaga haddii ay kaa tahay dhab inaad guusha aad hiigsanayso aad gaadho ka fogow oo meel dheer ka aad oo ha soo jaleecin kuwa kan lambarka 1 wixii ku dhaafay shalay iyo nolosheedii lambarka 2 fikradaha dadka kale iyo go'aanadooda lambarka 3 aaminaad yari xadidan oo aad ku qabto naftaada lambarka 4 xiriirada lambarka 5 lacagta lambarka 1 wixii ku dhaafay shalay iyo nolosheedii marna ha aqbalin hana yeelin in dhacdooyinkii ku soo dhaafay ay saameyn ku yeeshaan naftaada marna ha ogolaan in ay ka hadgeliyaan iftiinka mustaqbalkaaga ogolow wixii tegay in ay ku dhaafaan wax tegay tagsiimaad ma lahan horay u soco u ogolow naftaada in ay hesho awoodda ay ku hilmaami kadho wixii tegay ha yeelin qoomamo iyo kudul-ooy caanihii kaa qubtay wax kasta oo dhaca waxaa kugu waajib ah inaad ogolaato inay ku dhaafaan hilmaan xanuunka dhacdooyinkii tegay iska gadaal mari mugdiyada wixii tegay wixii hore ee tegay waa ay tageen arag oo garo haddii aad ku daaliso naftaada inaad gadaal u hagaajiso wax kaa tegay daal mooye noloshaada marna ka yeeli mayso guul haddii uu jiro qof kaa galay khalad halka wado ee aad ku guulaysan karto waa inaad ogolaato inaad ka tagto horeyna aad uga socoto haddii aad weli la nooshahay nacayb ogow waa ay kaa guulaysteen haddii aad la nooshahay weli dhacdo dhibaato ahayd waa ay kaa guulaysteen haddii aad doonayso inaad guulaysato waxaa kugu waajibaa inaad awoodda saarto dhisidda mustaqbalkaaga hadda bilow iska xoray wixii ku dhabar maray micnahayga nolosha tagtay xor ayaad ahaanaysaa mar labaad ha ka yeelin wixii tegay inay burburiyaan waxa aad hadda u joogto waad hadda ah mid aad awooddo inaad ku raaxaysato diyaarna u ah inaad si furan oon macaan aad ugu noolaatid lambarka 2 ha ogolaan fikradaha dadka kale iyo go'aanadoodu in ay saameyn ku yeeshaan halka uu ku jihaysan yahay geedigaagu baahida aad u qabtid in wax lagula qabto iyo doonista dadka kale waxa ay kugu sababi kadhaa in aad hoos uga socotid halka aad doonayso inaad u socdaashid farxadgelinta dadka kale waa habaar kaa fogeyn kara dhammaan qiimaha aad leedahay hor intaadan waxba samayn weydiin naftaada waxa aan qabanayo ma waxaan u samaynayaa baahida naftayda mise waa ka cabsi qab xukunka cid kale haddii aan samayn waayo ogow waxaad u dhalatay xor waxaad u dhalatay inaad ahaato addoon alleh oo maqsuud ku ah waxa uu yahay kana mahad celiya ma ahan inaad naftaada hoos geysid go'aan mid kula siman dhalaani naftaada oo muuji si ay u iibsadaan kuwa kale dhalaalka naftaada lambarka 3 ha aqbalin in ay naftaadu u ogolaato shakhsiyadaada awood kalsooni ku qab oo aad u xadidan waxaad kadhaa adigu wax kasta waad haysataa wax kasta waad gaari kadhaa guulaha uu qof kale uu gaaray waa haddii aad kalsooni ku qabtid naftaada haddii aad aaminsan tahay in wax kasta ay suuragal yihiin oo maxaa diiday wax kasta waa suuragal laakiin waa markii aad u beddesho xadidaadda mid aan xadidaad lahayn haddii aad aaminsan tahay awooddaadu in aanay xadidnayn sawiro waxa aad kadho inaad qabato haddii aad mar kasta la nooshahay fikradda ah wax kasta waa suuragal waxa ay la micno tahay oraahda ah haddii aanu jirin cadow gudahaaga ah ogow cadow dibadda ah waxba kaa dhibaato ah kuma geysan karo haddii aanu jirin wax adiga kugu dhex jira oo gadaal kuu dhigi kara ma jiro wax bannaanka kaaga iman kara oo gadaal kuu dhigi kara lambarka 4 xiriirada haddii aad doonayso in xiriirka qofka aad la leedahay uu mar kasta faraxsanaado inuu dareemo mar kasta dhammaystir dadaal kastoo aad samayso iska ogow waxa aad tahay xasuus yar kala tagga kadib haddii uu qofkaasi kaa tago ama farxad la'aan ay dhacdo ama xiriirkiinu uu ahaan waayo mid fiican anigu ma soo jeedinayo in la iska ilaaliyo xiriirka jacaylka ah balse ogow ma jiro awood maanta ka weyn oo dunida taal jacaylka waxa aan ka hadlayaa waa kuwa aan noolaan karin haddii aanay xiriir jacayl dhex maquursanayn balse waxa aan leeyahay waxa ay tahay horumari awood maskaxeedkaaga si aad u gaarto halka aad rabto halka aadan doonayn kuwa kale inay kugu farxad geliyaan jacaylku waa nolosha qayb ka mid ah balse micnaheedu ma ahan inaad addoon u ahaato
iska xoree jacaylkaaga bilow noloshaada adiga oo hantinaya nolosha macaan ee uu jacaylku leeyahay. shanaad, lacagta waxa kaliya ee saameynta ku leh badanaa dadka dunida go'aanadooda ma garanaysaa waxa ay tahay? waa lacagta. tan lama jeedo in aadan u baahi qabin in badan ama ayba lacagtu tahay shaydaan. si fiican ayaad u og tahay lacagtu inay muhiim u tahay qayb badan oo nolosha ah, balse waxaan ula jeedo waxa ay tahay halkan. ha ka yeelin in go'aanada noloshaadu ay saameyn ku yeelato lacagta. haddii aad doonayso inaad wax uun u doorato kaliya inta lacag ee aad ka helaysid ama kaa soo galaysa, runtu waxa ay tahay inaad samaysay go'aan khaldan. waxa aad helayso waa waxa uu raacayo qalbigaagu. ha u bahdilin naftaada dollar aad go'aan saxan oo aad qaadatay aad u beddeshay. ka fogow laaluushka una ogolow naftaadu inay ku noolaato gaajo iyada oo xor ah, balse marna ha u yeelin inay noolaato nolol raaxo leh iyada oo tay gunnimo. haddaba ku tababar naftaada inay ku noolaato nolosha aad doonayso, mid xor ah oo ka madax bannaan dhammaan saameynta dibadeed iyo tan gudaha kaaga imanaysa. heeryadaada si furan oo dhammays ahna u noolow. waad gaaraysaa halka aad doonayso. markhaanti ayaan ka ahay inaad awooddo wax kale ee awoodi kadho. waad guulaysan kadhaa haddii aad naftaada ka yeesho mid ka xor ah wax kasta oo saameyn kugu yeelanaya. fadlan nagu dhiirigeli subscribe iyo share, deedna ka hel channelkeena taariikho dad nolosha guula ka gaaray iyo warbixinno xiiso leh. mahadsan.